القرآن يهدي للتي هي أقوم. إلهي اجعل كتابك لي شفيعا وبلغني به الشأن الرفيعا إذا جمع الأنام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، داود kusoo dhawaada barnaamijka rixlatii maca alqur'aan oo maanta aan ku wareysanayno Suhayb Maxamuud Suleymaan. kusoo dhawaad barnaamijka rixlatii maca alqur'aan. magacaaga meesha ku kortay? fadlan. bismillah. magacayga waa Suhayb Maxamuud Suleymaan oo waxaa ku dhashay magaalada Vanta oo wadanka Finland. waxaa kusoo barbaaray meelahaas dhowr sano Finland, dhowr sano Suuriya, Masar. alxamdulillah. Suhayb, marka waxaad nooga sheekaysaa sidaad qur-aanka ku baratay iyo xaaladaad la soo martay iyo hadda meesha aad ka marayso. ana qur-aanka waxaa ku bilaabay masaajidka Masjid Al-Huda, alifka likaa soo bilaabay oo ka bacdina guri aabay ku dhihi jiray juzcamo meelahaas. ka bacdina Suuriya markaa ugu horay macalin oo gurina ku imaan jiraa lahayn oo dugsi ma jirin, markaas dhowr juz meelahaas 4 juz xifdiyay alxamdulillah. kabacdina marka kasoo noqday aan Masar ugu horay 2 sano ku dhawaadaa joogay. markaasaa qur-aanka si fiican kuu soo jeestay oo qur-aan bes ayaa dhigan jiray 2 sano. 2 sano oo Masar joogto qur-aan bes dhiganaysa? qur-aan bes. intee xidisay markaas qur-aanka markaa Masar joogtay? 15 juz taqriiban 15 juz. Suhayb, markaa kasoo laabatay Masar waxaa kusoo laabatay galbeedka halkan Finland, صح؟ markaa kadib iskuulaad gashay, waxbarashadii maadiga ku laabatay. makaalon markaas qur-aanka sidii horan u hayn jiray uma haynin. kabacdi wax badan waa ilaaway. markaas kadib waxaa isku dayay qur-aanka inaanan sii wadin, aan wax badan sii xifdinaa inta aan soo dhaafay inaan haayo aan muraajaco ku sameeyo. alxamdulillah intii badneed waa soo celiyey. hadda Finland markaa kusoo noqday sanadkii soo dhaafay, xifdiga waa dhinaca ka bilaabay, muraajacaan dhinaca ka bilaabay. si kastaba waxaa waaya qur-aanka haddaa xifdisido laakiin aanan kullisaynin waa dembiga kuu socda. waxay kaa fiican dhowr juz aan u aqaano laakiin si fiican u aqaano. ma kula tahay in qur-aankii la baran karo ayadoo la joogo qarbiga, iskuulkiina la wadi karo oo suurtagal ma tahay in labadiiba la isku wado ayadoonan aanan qofku uusan nolosha midna uusan ka dhacaynin, tii iskuulka iyo tii islaamka? waa la samayn karaa laakiin way adag tahay. waxay ku xiran tahay ardayga hadduu juhdi ku bixinayo oo jacaylka hayso qur-aanka inuu barto wuu samayn karaa. qof hadduu yahay kala jecleen oo kale way ku adkaanaysaa. laanna wadamada aan joogno fitnada badan, diraasada wax badan, yani ilmaha culeys badana saaran. hadduu asaga rabin qur-aanka oo lagu khasbaayo way ku adagtahay inuu barto si fiican. laakiin cunug hadduu usoo jeedo si fiican markaas way u sahlanaysaa. ma noo akhrin kartaa aayado qur-aan ah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جزاك الله خير جزاء صهيب. الله نوافع قرآنكاس dhammaanteen kuwii diintooda ilaasha Allah naga yeelo. Waxaan rajeynaa dhalinyarada kula da'da ah inay ku dayan doonaan, dadaali doonaan, fahmi doonaan inay diintooda ilaashadaan ayagoo waxaan ku dhahay barabanaya diintoodii aanana luminayn adduunka iyo maadiga sidoo kale ayagana tagay iskuuladoodii si fiican ku baranaya. بارك الله فيك جزاكم الله خير. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكن رحلتي مع القرآن أما سفركي وقرآن كرنتي وبرنامج هذا قيمة بدن أنا جمع هاد علينا أنت سكسود بريدة أنت صاد يارسي إلهي سبحانه وتعالى ميزانك وذا حسناتك ودرة ولا لي القرآن كوا نلشة قفك بني آدم كا سيدا قفك أوسن بيلان ونولان كرين أيوسن قرآن لان ونولان كرين هذه سؤال اللي يصاب بندية عن توسو قد قلو سيدا قرآن كبرتي waxaan u kala qaybin karaa ilaa 3 marxaladood. marxalad aan ku jiray dugsi ka mid ah dugsiyadii caadiga ahaa ee la yaqiinay taqliidiga ahaa ee dhaqanka ahaa ee looxa iyo ciidda la fariisan jiray. marxalad labaad oo ku xigto ahayd guriga iyo marxalad midaas la socotay oo saddexaad oo tan guriga ay gohelisay marka xalaqaadka quraanka ee hadda sida casriga loo dhigto ama masaajidda lagu dhigto. marka ugu horeysay anigoo aad u yar oo taqriiban aan isleeyahay 5 sano inaan jiray ayaa dugsi la geeyay. marka aabba Allah naxariistay uu shaqayn jiray shaqaale dawladeed uu ahaa. dugsiga markii la geeyay waxa caado ah u ahayd asaga marka galab walba inuu nagu imtixaamo ama uu na weydiiyo maxaa soo baratay. maalinka dambaan marka waxaan akhriyay wali waan xusuustaa suuradda inna acdaynaaka alkawthar ayaan akhriyay. markii aan dhameeyay inna acdaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanhar inna shaani'aka huwa al-abtar bay ahayd. waxaan akhriyay huwa al-aftar. ku celi buu yiri waa ku celiyay 3 goor. maxaa dhacay maxaad akhrinaysaa saasaa usoo bartay. adigu dugsigii waxoogaa ka yara shakiya say wax u socdaan. maalinkii dambe hooyo Allah naxariistay ayuu yiri subaxdii raac bal xaaladda iisoo ogow. hooyo Allah naxariistay iyadana israacnay dugsiga ay raacday. marka maalinkaas dugsiga waxaa nahaysay oo quraanka noo dhigaysay macalinka xaaskiisa oo qof weyn ahayd oo inta badan marar uu tago iyada hayn jirto. calaa ay xaal isku soo duub halkaas wuxuu ka fahmay aabba Allah naxariistay marka in khalal uu jiro oo meesha kala go uu jiro. marka wuxuu yiri haddaba saan tahay oo maanta huwa al-aftar waa ay keentay marka dib male gurigaad quraanka ku baranaysaa. isaga marka guriga quraanka uu ku bilaabay. markaas waxaan deganayn xaafadda waa bari dadka garanaya wadada Maka al-Mukarrama sarti dabka guriga u dhawaan deganay oo dhinaca waa bari ah. muddo kadib waxa Ilaahay qadaray inaan dhinacan hodan u soo guurnay oo u dhow Kaasmal Balaari isgoyska Bakaaraha dadkii wadanka kala garanaya ama xilliga soo gaaray oo markaas aan u soo dhawaanay masaajidka Sheekh Ali Suufi Allahu naxariisto sheekha. aabba iyo sheekhana saaxiib bay ahaayeen
oo dhanka qur-aanka iyo maaragtay weliba tajwiidka hirgelintiisa iyo hirgelinta xalaqaadka qur-aanka iyo howlahaasi saaxiibo ku ahayn masaajidkuna tegi jiray markii dambena masaajidkaas ayuu igu daray oo isaguna uu ka ahaa qayb sida dadku ay wada xusuustaanna waxaa jirta xalaqo qur-aan ah oo masaajidka laga akhrin jiray maalin kasta oo ay jus baa la akhrin jiray qof walba wuxuu qaadan jiray qayb loogu talagalo maqra ah oo loo yaqaano maqrada sheekh cali suufi oo ka duwan midda hadda kitaabka ka duwan oo maaragtay xisibka hadda kitaabka dhowr maqra ayay noqonaysay marka sidaas ayaan intii dambena aan qur-aanka ku kamilay oo aan markaa sheekh cali suufi allah naxariistay laftigiisa tasxiixa isaga ka qaatay aabba allah naxariistay marka waxaa aad ula yaabi jiray waxay ahayd siduu ugu adadkaa arrinkaas waxaan xusuustaa galaaska labaad markaan ahaa iyo galaaska koowaad iyo saddexaad galab baan dhigan jirnay waagaa soomaaliya iskoolka dadna galab bay ahaayeen dadna subaxani marka galab baan dhigan jiray iskoolka marka wuxuu ahaa dugsiga hoose dhexe hodan taqriiban guriga iyo iskoolka marka laysaga lugeeyo qofka caadi u socda waxay ku qaadanaysay 20 daqiiqo ama 25 qofkii maaragtay soo ordana ka yar guriga iyo masaajidkana intaa in la eg ayuu noo jiray marka dhexdaan anuu ku jirnay iskoolkayga iyo masaajidkan u dhexaynay wuxuu igu yidhi aabba allah naxariistee aniga shaqadee ma aha iskoolka waqtigaa kasoo baxaysa aday kuu taalla laakiin salaada maqrib marka assalaamu calaykum yidhaahda assalaamu calaykum waxaan rabaa agteeda inaad joogtid maxaa yeele maqrib kadib xalaqadaa bilaabanaysa marka nin dugsiga hoose dhexe hodan kasoo baxay masaajidka sheekh cali suufi ee kaasba ballaara ku yiilana u socda waad garan kartaa masaafada ku jirta oo la rabo inuu guriga tago dharka iska bedelo haddii uu cabayo wax cabo kadibna uu baxo marka orodkan iskool ka soo qaada ayaan imaan jiray hooya allah naxariistay iyadana waxay caado u ahayd galabtii inay shaah iyo caano iyo wax noo diyaarisay casiriye iyo marka kama gaari jirin waa dhaweyd bay dadka mar uga sheekeyn jirtay anigu weligay kama gaari jirin maxaa yeele waxaa isugaysaa in maqribkii laga helo xagga sidaasaan marka salaada maqrib marka la tukado aan assalaamu calaykum yidhaahdaan agtiisa ku tukan jiray sidaasaan marka qur-aanka aan kusoo bartay ilaa markii dambe masaajidka aan kasoo wareegay oo markaa masaajid kale oo xaafadeyda laga furay halkaas kadib aan kasii ambaqaadnay marka qur-aanka sidaas dheer ayaan kusoo baranay waxaana ilaahi subxaana watacaala aan ka baryaynaa waalidkiina soo baray qur-aanka inuu ajari xasanaad ka siiyo iyagaa ku dadaalay waxaa kaloo aan xusuustaa aabba allah naxariista uu aad nooga kontrooli jiray in qur-aanka guriga lagu akhriyo qof kasta oo ilmihiisa ka mid ah ilaa dhowr iyo 10 baan nahay intii dhimata iyo inta nool marka laisku daro qof kasta oo ka mid ah wuxuu maaragtay ilaa cabdiraxmaan oo aan nasiib u helin walaalkii cabdiraxmaan oo aan nasiib u helin asaga inuu soo gaaro maxaa yeele asaga aabba wuxuu dhintay isagoo 3 sano jira laakiin inta kale qof walba guriga ayuu uga dhagaysan jiray weliba wuxuu caado nooga dhigay in qofku hal maaragtay uu bishii mar dhammeeyo hadduusan wax kala samayn karin yacni hadduu caajis yahay inuu bishii mar dhammeeyo si aan u baranana wuu nagu ilaalin jiray ilaa marka dambe qofka automatic uu la qabsado kadibna uu markaa uu iska daayo sidaa darteed marka qur-aanka runtii waxaan oran karaa waa nolosha qofka sidaa aan soo sheegnay ilaahi subxaana watacaala aayadihiisa qur-aankaa tilmaamaya hudan wa shifaa waraxmatun lilmu'miniin maaragtay ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam qul bifadlillahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun yacni qur-aanku waa daawo waay dhinac kasta leh haddaad rabto adduunka inaad ku liibaanto aakhirana ku liibaanto waxaa weeye qur-aankaasi ku jirtaa dardaarankeena iyo waxaan isu dardaarmayno waxaa weeye in qur-aanka la barto lagu camal falo la akhriyo tajwiidka la iska saxo oo si saxa loo akhriyo maaragtay ilaahi subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo dadka ahlu qur-aanka ah ee ahalkiisa ee khaaska u ah ilaahay inuu naga dhigo kuwa qur-aanka xuruuftiisa iyo xuduuddiisa labadaba toosiya ee uusan naga dhigin kuwa xuruufta keliya toosiya ee xuduudda dayaca maxaa yeelay akhris keliya iyo in cod fiican lagu akhriyo laftigeedu marbay khatar leedahay haddii aadan ku dhaqmaynin oo xuduuddiisa aysan ku celinaynin sidaa darteed baan leeyahay marka qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala ha lagu dhego ha la qabsado ha la barto qofkii xifdin karana ha xifdiyo qofkii aan xifdin karinna ha akhriyo oo kitaabka ha ka akhriyo nabigana calayhi salaatu wasalaam waatuu leeyahay alif laa miim ma dhahayuu yidhi xaraf laakiin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun macnaheedu waxa weeye haddaad maanta bismi illaahi araxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin keliya aad akhriso yacni intaasoo ajar baad ku helaysaa
marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa hadalka wanaagiisa qaata kuna camal fala camalkeena ikhlaas uu ka dhigo intaas ayaan kusoo koobayaa qaybtii yareed ee loogu talagalay barnaamijkeenii rixlati maca alqur'aan wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu